saraakiil kale oo ka tirsan shabaab ayaa ayana lagu soo warramayaa in wadahadallo ay hadda dowladda kula jiraan kadib sheekh mukhtaar go-aankii uu ugu soo biiray dowladda weli maanu caddaynin in mowqifkiisii uu ka tanaasulay waxayna ka mid tahay waxyaabaha lagu dhursugayo iyo go-aanka dowladda mar haddii uu dhinacooda soo aaday waxaanu falanqeyn ku samayn doonaa arrimahaasi waxaa igala qaybgalaya barnaamijka dabagalka wararka ee caawa sheekh maxamed macalin afhayeenkii hore ee ururka xisbul islaam ee burburay haddana ah guddoomiyaha xisbiga istiqlaal waxaa telefoonka baydhabo ku jira cabdullaahi sheekh xasan wasiirka dastuurka ee maamulka koonfur galbeed waxaan ku hormarayaa sheekh maxamed macalin oo studio universal igula sugan sheekh maxamed dabcan aad baad ula socotaa xaaladdan afhayeenkii iyo xogayihii arrimaha dibadda ee ururkii xisbul islaam ayaad soo noqotay arrimahan kooxaha dowladda ka soo horjeeda gaar ahaan shabaabka iyo ururkii adigoo aad afhayeen ku ahayd ba aad ugu dhuunduleeshaa markaad eegto waxa dhacay maanta ma la filayay in sheekh mukhtaar oo aad og tahay heerka uu ka jooga shabaab iyo mabda'aasi intaba in uu dowladda dhinaceeda soo aado بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحسن بعض الصحافة ومهد علينا جارهن مسؤولين تي ومعمولك تي في أستاذ عبد الله وحنا ربا وحير إنه كوس صحة قضية ما أهن الشيخ مختار روبو قضية السعودية بيدا ما أهن برنامج هو برنامج إن مدة سو سعودي وله حي وضع هذا وسعودي إن مدة shiiqa iyo dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya in mudana qaatay sida aad ka dhawaajisana waa la socotaa in cunaqabatayntii saarneed laga qaaday wada hadalladaas ayay qayb ka ahayd in mudana soo socday maantana aan ku tilmaami karno inuu soo gaaray marxaladii ugu dambeysay ama heer gabagaba ah inuu soo galo sheekh mukhtaar roobo dhulka ay ka taliyaan maaragtay dowladdu ama maaragtay iyo maamulka qadiyadu kuma dhisna barnaamijkii baryahan dagaaladii ka socday meeshii uu joogay sidaas darteed barnaamijka waxaan ku tilmaami karnaa fursad oo musaalaxa ah oo in muddaba shiiqa iyo dowladda federaalka iyo maxay ahayd maamulka koonfur galbeed Soomaaliya u socday oo runtii aan tilmaami karo inay maaragtay wax badan ku soo kordhi doonto dowladda federaalka iyo amniga koonfur galbeed Soomaaliya marka filashadaadu ma kula ahayd in ay sidaan dhici doonto waa muuqatay maadaama barnaamijka wada hadalla ay socdeen in muddana soo gabagaboobayeen barnaamijkaas waa muuqdaa inuu sidaan ku soo gabagaboobayo waay cabdullaahi sheekh xasan telefoonka baydhabo ku jira mar haddii sheekh mukhtaar uu gacantii dowladda ku jira maxay tahay tillaabooyinka xiga ee loo baahan yahay bismillah horta waa igu raacodka wadaadku maan maqal laakiin su-aashada dhaan galo waxay la tahay horta waxa macnaha leh waxay tahay qofku asoo qayaare oo daacaddu la heshiinayana wax u taraya isaguna wax taraya oo gorgortami kara horta inuu ka soo noqdo fiican fikirka laakiin de haddii asagaba qaati taagnaa soo dhiibo kuma filnaanayso quality shala uu lahaan karay oo labada dhinacba naftiisa hadday aan lahayd iyo codda isu dhiibo way ka faa'iidaysan lahaayeen waxbaa ka dhimaanaya tan kale muhiimadda waxa tan kale qofku haddii uu intuu ka mid noqday qolyahaas oo aada og tahay waxa dhacay oo 2009 2010 wadaadku siduu uga dagaalamay Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho xawgeed yani ka sameeyay aniga waxay la tahay waxa muhiim ah bini'aadmigu inuu qaldamo waa caadi oo waa bini'aadmi aan nahay kulligeena waa qaldamayna laakiin tan ugu horeysa loo baahan yahay waxay tahay horta sheekh mukhtaar hadee inuu cudurdaar ka bixiyo waxa uu sameeyey intaan hadda tallaab kale la qaadin oo sida isagu amba wax u qabsan lahaa amba loola qabsan lahaa aan la gaarin horta bal inuu cudurdaar rasmiga ka bixiyo ee dhibaato badan uu gacantiisa ku geystay isagay miduu soo abaabulay dad kale ku geystay miduu gacantiisa ku geystay miduu afkiisa ku geystaba marka taa la helo ayaa waxay la tahay inay u furan tahay marka isaga bal mustaqbalkiisa in laga helo laakiin intii weli aan isaga weli afkiisa war laga hayn waxay la tahay waxoo shacabkuna
ma aamini karayaan oo marka uu isagu weli aamusan yahay ama sidii xasan daahir oo kale uu laga yaabo inuu qabyo inuu weli sii dagaalamo laakiin sana qasabtay marka waxa ugu horeeya looga baahan yahay waxay la tahay qofku ilaahiisa abuurtana inuu toobad keeno dadkii bini aadamka ay wax u geystana dee ka cafis ka dalbado intaas marka la helo kadib ayay suurtaamino way sheekh maxamed ma tahay sida uu sheegay cabdullahi sheekh xasan in uu cafis weydiisto dadka Soomaaliyeed sheekh Mukhtaar gaar ahaan dagaaladii iyo howlihii uu ku soo jiray muddadaasi dheer markaad eegto mase laga helayaa arrintaas aad leedahay wax yar inaan sax ayaan rabaa horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa toobad maaragtay in loo toobad keeno waa shay muqadisa oo diiniya qofkuna maaragtay markaste ilaahay subxaanahu wa tacaala toobadda waa furay waana inuu maaragtay qofku markasta ilaahay u toobad keeno wixii dembi oo maaragtay shakhsi iyo jamaaciba uu ku galay laakiin waxaa jirta qadiyadda hadda sheekh cabdullaahi sida uu dhigayo waxaad moodaa markaste in khaladkii hore lasii ambaqaadayo oo shalay sheekh xasan daahir maaragtay ay dowladdii hore fashilkii ay gashay si kastaba ha ahaatee fikirka waa lagu kala duwanaa kartaa siyaasad ahaan sheekh Mukhtaar sidaan la soconno mabda'iyan waa dadka maaragtay dagaalka u galay in uu maaragtay marxaladii duulaankii khaarijka waddanka kaga yimid laakiin fikir badan kaga duwan qaabka dib u heshiisiinta iyo Soomaalida dhexdooda ah wax badanna maaragtay taariikhda kula sidaad la socoto xabsada iyo raggii kamid ahaa baydhabo markii uu maamulkeeda qabto uu soo daayay sidaas darteed barnaamijku waxa weeye dawladda Soomaaliya ama maamulada waxaad moodaa iyagoo xataa amnigii aan dalka gacanta ku hayin inay gacan haad markasta ay sameeyaan aad moodaa inay international la xaajoonayaan ee ay wadankii dadkii jooga la xaajoonayn marka qadiyadan adduunka waxa maaragtay siyaasiga la doonaya inuu dadkiisa taageero ka raadiyo iyo dib u heshiisiin iyo cid kasta oo maaragtay wax kala dhaxayaan ama fikir ay ku kala duwan yihiin laakiin ma ahan gacanta internationalka iyo sida loo haatinayo in hadalkaas internationalka ha gaaro in loo hadlama marka fursad ayaa ii muuqata wixii shalay dawladdii horena ay ku fashilantay sheekh xasan daahir annaga ayaa maaragtay qayb ka ahayn barnaamijkaas dib u heshiisiinta kuna keenay oo maaragtay baraawana kaga yimid marka haddii qadiyadii halkii ay istaagto waxaad moodaa khaladkii shalay dhacay in haddana mar kale la galaayo ma waxaad ula jeedaa dabcan iyagoo aan raaligelin bixin ama cafis aan weydiisan ummadda Soomaaliyeed maadaama ay dagaalay colaado dad badan oo Soomaaliyeed wax ka soo gaareen ay qayb ka ahaayeen waxaad qabtaa in la sii daayo oo ay magaalada dhinac ka galaan qadiyadaas waa qadiyad maaragtay runtii aan ku tilmaami karno sida uu haddaba ku yimid barnaamijka musaalaxadan hadda uu ku socday inay qayb ka tahay barnaamijkaas laakiin haddii laga bilaabo maaragtay maxay ahayd ii toobadkeen ilaah baa loo toobad keenaa marka sidaas darteed khaladka maaragtay siyaasiga la galay sidaan la socno sheekh cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa raggii maxaakimta uu ka mid ahaa ma ujeedaa ninaan soo marin ma jiran sheekh shariifa ka mid ahaa marka waxa weeye haddii qadiyadii haddaan dowlad ku jiraan iyaguna cafis maysa weydiiseen marka barnaamijku maaragtay waxa weeye habda marxalad ayuu maraya laakiin hadda anigu waxaan arkaa marka koobaad dhammaan haddii toobadba ay tahay ilaahay aan wada toobkeenna dhammaanteen ummadda Soomaaliyeedna ha lagu kala duwanaado qof baa maaragtay cadowga asagoo qoriga u wada maaragtay qof Soomaaliyeed ay uga dhacay markastana toobadaas maaragtay cafis iyo maaragtay waa muhiim Cabdullahi Sheekh Xasan sidaad ogtahay Sheekh Axmed Madoobe ama Sheekh Axmed Islaam oo hadda hogaamiyaha Jubbaland uu ka mid ahaa dhinacyadii soo dagaalamay sheekh shariif sidoo sheegay iyo xubno kale oo dawladda ku soo biiray iyaguna dabcan intooda badan inta meel fagaara istaageen sida cafis uma dalban marka maxaa ku qasbaya sheekh xasan iyo sheekh mukhtaar iyo kuwa dambe hadda yimid iyagu inay arrintaas sameeyaan horta intaa ka fahmay waa sidaan hore kugu sheegay maqalka wadaadku aad buu anaga igu yaryahay laakiin su-aalahaga un baan ka fahmayaa waxay la tahay inaan islahayn nimanka lasoo qaaday oo ama adigu soo qaado ambaasada soo qaatan waa aad ugu maqlatay laakiin hadii sheekh shariif wuxuu ka bilaabay inuu fikirka ka baxo horta marka hore inuu uga tegay casmaro groupkii adduunyada iyo dadka Soomaaliyeed meelaha ay joogaan ugu tagay dabcan sida caadigaana marka hore casmaro wuxuu uga tagay ama wuxuu ahaaba in uu khaldamay fikirkaasina anfici waayay
kadibna dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayuu dhex galay oo sheegay inuu ka tanaasulay fikirkaas taa waa taas kadibna waa tan keentay haddee inuu madax u noqdo soomaaliya oo walba muwaadin uu ahaayo cabdullahi in fikir laga tanaasulay in cafis la dalbadaa labay kala taa sidaasna waa iskula soconaa soo ma mada cafiska horta mid waxaa rabaa dadka hadalkiisa markuu noqdo wer ilaahay baa cafis la wadiista waa dhab ilaahay baa loo keenaa waa run laakiin bini aadamka wax loo geystay waa muhim waa sida mukhtar maanta ilaahay iskuma dhiibina wuxuu isu dhiibay dadka soomaalida iyo dowladda soomaalida isu dhiibay dagaalkii uu sheegayo iyo in la dhinto iyo ilaa aan ka dhinto waa wadaya wixii waa soco waayeen waayo waxu kasoo cararaada dhimashada qayb ka tahay waa inaan run ku sheegna ma ogtahay inuu kala waayo meeshii dagaalka ku qabsatay qoladii shalay isla wadeena dadka isla leeyahayen ay isku keeneen dabeetana isagoo meeshii ku noolaa waayey marka waa muhim marka meesha loo soo noqonaya waa dadkii waa dalkii oo awalba isagu iska go'doomiyey oo dhinac kale ka qaatay marka dhinaca kale tusaalaha uu soo qaatay axmedoobe dee dagaal walba ku bilaaba ayagii uu la dagaalamay isagaa ka saaray wadankii markuu ka saaray unbuu kadib meesha uu ka saaray wuxuu kula shirkoobay dowladda soomaalida ku marti qaaday ay dowladda ugu tagtay oo ogolaaday nidaamka dowladda inuu ka hoos shaqeeyo marka dee waxay la tahay ismale mukhtaarna laga soo dhexguuday meeshii isagoo dagaalkii haddii aanu arrintaas samaynin maxaa u furan dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda haddii aan ula samayn oo yiraahdo anigu ma aqoonsanin dowladda horta waxa ugu horreeya u dhihi karaa waxa waaye dowladdeena aan aqoonsanayn oo yiraahdo dowladda ma aqoonsanin ama dastuurkeeda iyo waxay ku dhaqmayso ma aqoonsanin ama waxaygan aaminsanahay waxaas oo dhan hadduu yiraahdo dabcan waxay la tahay la sii day karaynin oo sida xasan daahir darafka uu istaago kale markuu istaago dabcan sida xasan loola dhaqmaa isagana waa la xiraya oo suuragal maaha qofku inuu yiraahdo dowladnimada ma aqoonsanin dhan Soomaaliyeedna ma aqoonsanin aan sameeyo oon dilay oon anigu u fadwado inay gaala yihiin welisan u qabaa intaas soo dhacay qofku kuma gacanta dowladdana kuma sii day karto sidaas wuxuu ku xugun noqonayaa xasan daahir sheekh maxamed sida hadda xasan daahir xaalkiisu ay tahay ee ah in aanu ogolaanin sida la sheegay in uu mabdii ka laabtay uu ka laabto shalay uu ku jiray dabcan aanan diyaar u noqonin in dowladda iyo dadka uu dhinaciisa ka galo qof sida ah in sida hadda uu yahay lagu hayo maxaa dhib ku jaban oo adigu qabtaa haddii sheekh mukhtaar uu sidan isna go'aankaasi mid lamid ah qaato in si lamida sida sheekh xasan dowladdu inay ula dhaqanto sidee u aragtaa adiga horta waxa weeye mushkiladdu waxa weeye adigoo taagan haddii lagu inkiraa dhibkeeday leedahay qadiyadda la isku hayo waxa waaye barnaamij musaalaxa iyo dib u heshiisiin laakiin haddii waa laga ciidan badan yahay qadiyaddu ay tahay waa qadiyad gooniya waxa weeye mukhtaar roobow iyo sheekh xasan daahir labaduba waa shacbiyo ballaaran ayay leeyihiin dowladda Soomaaliya ama midii hore ama midaan cabsida jirta waxa weeye ninkan markuu musaalaxada soo galo ama shacbiyada la wareega oo miisaankiisa maaragtay oo ka balaarta saan dareensanahay Cabdullaahi ka hadeer qadiyada ka hadlaya waa ka iyo Mukhtaar Roobow hadii maaragtay maamulka koonfur galbeed la weydiiyo waa ka shacbiye balaariya Mukhtaar Roobow maaragtay waa ka shacbiye balaariya sidaas darteed qadiyada la isku hayo waxa weeye hadii maamulka ay soo galaan ama shacbiyadii maaragtay maxay ahayd ay wareegtaa marka labaduba waxa moodaa qadiyada taagan inay tahay shacbiga waxa lagu dagaalaa taageeradiina la maaragtay marin habaabinayo sidaas darteed anigu waxaan leeyahay fursadii shala dhuntay ee sadhumi ma qabtaa qof dabcan nidaamka ku jira ee soo dagaalamay ee dawladda la dagaalamay aad ogtahay marka qaar laga yaabay sabab isagoo qayb ka yahay inay dad badan u dhinteen in isagoo aan ka bixin fikirkii oo aan ummadda wacday inuu fikirkaasi ka laabto ee la sii daayo ma qabtaa sidaas qadiyadda waxaa isweydiin leh haddeertaan muddada socotay wada hadalka socday cunaqabatayntii looga qaaday maaragtay 5 milyan looga qaaday soo qayb kama ahan wada hadalkiisa kama soo fikirkii in uu ka soo dhawaada ma hadee maxaa loo daba gadina maanta markuu uu yimid maaragtay oo uu yimid oo maaragtay shalay markuu xaruntiisa joogay wada hadalkii socday markuu soo wareegay see looga baxay wada hadalka marka waxaad qabtaa in laga leexdo oo faraha laga qaado oo magaalada dhinac uga noolaadaan shuruud la'aan anigu waxaan qabaa barnaamijku waa barnaamij dib u heshiisiin wadankana dib u heshiisiin u baahan yahay dib u heshiisiintana waa in la dhameystira way Cabdullaahi Sheekh Xasan marka inta ka soo gudubno Sheekh Mukhtaar waad ogtahay saameynta iyo doorka uu ku lahaa al-shabaab dhexdooda ilaa heerka uu ka joogay markaad eegto
in gacanta dowladda uu ku jiro oo shabaab dhinacooda uu caawa uu ka maqan yahay maxay uga dhigan tahay al-shabaab dhinaca kalese fursad intee leeg ayay dowladda soomaaliya u tahay arrintan intaan aad u gudbin horta waxaan rabaa intaan ka fahmo wadaadka markaan ku noqdo ahaa waa dadku waxa laga qaaday embargada maraykanku ka qaaday ama cunaqabateyn uu ka qaaday de maraykanku wuxuu ku saartay marka horena isagaa yaqaan cunaqabateynta wuxuu uga qaatana isagaa yaqaan taas kama dhigneen maraykanku inuu ka turjumayo dadka soomaalida dhibaatada gaartay umayna darsan soomaalidu inuu marka hore saarana umay darsan inuu ka qaadana kala baynta shane waxaan ka hadlaynaa adeer sideedaba xataa kasoo tag al-shabaab iyo gruubkaas oo dhanba kasoo tag qofka bini aadamka gaar ahaan haddana markuu muslim yahay waxaa laga rabaa markuu qalab galo inuu qalab ka qirto ilaahay marka hore uu toobad keeno kadibna dee bini aadam haddii wax u geystay bini aadamkii uu wax geystay oo cafis ka dalbado taasi waa arrin mashruuc oo hadda wadaadka uusan ka murmi karin oo qof kasta ay og tahay guud ahaan xataa gaaladaa ku dhaqanto gaalada laftirkeeda waxa la suudiyaa qofku inuu ka noqdo apologies ka bixiyo